السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوada muuqaalkeena saddexaad ee aan kaga hadlaynay verbs. muuqaalka hore waxaan kaga hadalnay action verbs kaasoo u qaybsama laba qayb, transitive iyo intransitive. deedna muuqaalka ku dhamaanaya waxaan idin dhibay su'aal. midan jawaabteedu waxay noqonaysaa transitively because gaariga yacni aniga ayaa joojiyay oo shayga la joojiyay wuu muuqdaa. joojitaanka la joojiyay shayga la joojiyay wuu muuqdaa. The car stopped suddenly. gaariga uu joogsaday yani asaa joogsaday laakiin shaygu joojiyay waa isaga leon. marka midan marka waxay noqonaysaa intransively. Okay, marka muuqaalka maanta waxaan ka hadli doonaa reflexive verbs. reflexive verbs ayaan ka hadli doonaa. reflexive verbs maxaa la yirahdaa? reflexive verbs are those yani reflexive verbs waxaa la dhahaa kuwaas whose subjects and direct object are the same. kuwaasoo falaha ficilka iyo aqbalaha ficilku ay isku mid yihiin ayaa la yiraahdaa and reflexive verbs. Okay, they refer back to the same thing. yani iska shaygii unbay u laabanayaan. kii ficilka sameeyey unbuu haddana ficilku u laabanaa or person ama qof. Let us see the examples below. su'aalooyinkan aan aragno marka. Okay, let's say these examples. She stays home herself. xaafada ayada unbaa joogta. marka ayada ayaa xaafada joogta. hadda stays miyada waa yani joogitaankan cidda la joogaayo yaa joogo xaafada ayada la joogto. qofka cidda jooga ayada waaye, nafsirkeeda la u joogtaa cidda. Okay, the cat cleans itself. yaanyurta ayada bisada ayada la isnadiifinayso. Okay, bisada wax bay nadiifinaysaa waa falaha ficilka. okay, waxay nadiifinaysaa muxuu yahay marka? ayada la isnadiifinaysa. marka herself waa reflexive verbs. Okay, I slapped myself. aniga unbaa isdharbaaxay. okay, I slapped myself. aniga unbaa isdharbaaxay. He ate all the food himself. cuntada dhan asaga keligiisa ayaa cunay. okay, asaga le naftirkiisa la cunay. okay, marka kuwaasna waxaa la yiraahdaa marka reflexive verbs, kuwaasoo ku tusinaya shaygan falaha ficilka iyo aqbalaha ficilka inay isku mid yihiin. insha Allah taala muuqaalkan xiga waxaan kaga hadli doonaa auxiliary verbs oo aad muhiim u ah marka laga hadlayo Englishka. marka isku day muuqaalkan inaad ka faa'iideysato uusan ku dhaafin. waa yani haddaad fahamtid waxaan oran karaa Englishka qaybo badan ayaad ka fahmi doontaa insha Allah tabaaraka wa taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.